waxay ku socotaa ninka wadanka xakuumada Muuse Biixi madaxweynaha midna waxay ku socotaa nimankan isbeen farnime nariisooda la garanaya aanu wax rag la yaqaano iyagu meelahaas iska ritayuunka marka aan ciidan nagu soo dhoobay la gashay iska raali ahad maxad casow waxay noqotay Muuse Biixi waxaan u sheegayaa waa Soomaaliland waa beelo miiska beelaha la soo fadhiiso ciidu markay naga baxdo madaxweynuhu adiga iyo intaad jeceshahay soo kaxayso dhalinyartii maalintii aanu diiqnay dawladda Soomaaliland 19 een diiqa ku siinay maanta waan xisaabtamaynaa waxa weey ninkii habeenkii dhashay leeyni diiqay caawa waa 30 jir ragi ka weynaana maxaad u malaynaysaa waa beeluhu codkoogii bay rabaan annagu Soomaaliland ka mid baan nahay nabadgelyada jecelahay wadanimadeda jecelahay dawladda jecelahay laakiin marnaba cidba ummadda fadhiisanayno inaanu ka yeelno 13 iyo waxaan qursi oo la qaadi karin tagtagta dhexdooda ka hadlayay cid alla cid ay matalaan ma jirto cid soo dirasana ma jirto waliba waxa ka daran iyaga iswada basaasay oo wada kala socday waa khalad arrintaasi waxaan ka raali gelinaa ummadda in dhamaanba gobolka Awdal iyo Salal iyo Gabiley raali gelima ka sinina annagoo ku hadlayna afkii beelweynta Maxamed Case raali gelima ka sinina gobolka dhamaan iyo ummadda Soomaaliland dhamaanteedba waxa weeyaan waxaan xuquuqda naga maqan waxa kamida 6 goobood baa gobolka ka xidhan ee degmada maad aragtay Lugaya waxa ka xidhan waxa la wixii saamay qaybsan ku lahayn ba ka xidhan kuraasida aad ogtihiin qabiilka ugu yar ee maxay ahayd beesha dhexe baan la mid nahay annagu waana laba qabiil oo Ciise iyo Gadabuursiyo isa saaran weyni iyo beesha maxay ahayd Gabooye iyo gala gobolkan ugu badnaan iyo dadka kale ku dhex nool waxa weeyaan intaas laguma filan baan leenahay waa wixii ummadda Soomaaliland miiska inay isku timaadaan rabnaa oo tala qaran laga yeesho oo nin walba la qanciyo oo nin walba xaqiisi la siiyaan madaragtay yaan rabnaa nikale maanta xaq darrada ha lagu socdo oo ha ku socoto arintu waa nin ku dhagaroobaya ummadan halkan degan ee gobolada Awdal iyo Salal iyo Gabiley waa nin ku dhagaroobaya weeyi waa nin duminay qaranka Soomaaliland waa nin duminaya annaka in la sheegay waxay ku leeyihiin kulli waxba kama helayna aduntay dabada ka riix annaka la jecladeeda leh waxa leeyahay war cadaalad ha lagu qabto war cadaalad ha lagu sormo war cadaalad ha lagu soo noqdo taabaan leenahay ummadda dhalinyarta ah haweenka in oday dhaqameedka mutacallimiinta siyaasiyiinta gobolka Awdal waxaan leeyahay midnimo inoo ballama wadajir baa inoo ballama taabaan Soomaaliland ku dhisi karnaa taabaan danteena ku gaari karnaa tafaraaruq waxba inoo tari maayo salaamu calaykum jamhuuriyadda Soomaaliland cid naga xigta ama naga xigtaysan kartaa marka hore ma jirto ragin lafiya maalba u huray baan lahay maanta oo la joogana waan u huraynaa iyadana waxaanu cid marti uga lahayn cid doo fadhiisanayno ma aha laakiin waxaanu doonaynaa Soomaaliland la wada leeyahay oo xaq soor lagu yahay oo cadaalad lagu yahay ummadda waxa deeqa waa cadaalad waxa kala kaxeeyana waa cadaalad darro waxaanu anagu ummadda Soomaaliland dhamaanteed ugu baaqanaa in beel kasta xuquuqda ay leedahay in la siiyo wixii tabashay ay ka hadlaysana in la dhageysto dadka inaan la afduubin inaan sanduullada wax ku qaado la oran inaan daba ka dhiib wax la isku siinin miis bannaan oo gogol wax lagu qaadanayo dadka inta tabashadooda lagu dhageysto wixii ay xaq iyo xuquuq u leeyihiin in la siiyo doorashada ma diidarin horena way uga dhacday imigana waan u baahanahay waxaanu isa doonaynaa tabashada horta marka hore in la xalliyo oo la dhageysto oo loo dhaga nuglaado marka tabashada iyada miiska la saaray ee la xalliyo hawsheeda la xalliyo diyaar baan u nahay saan horba nafiya ma loogu huray waana loogu hurayna waxa weeye xeelada in gacanta la wada geliyo oo si siman loo wada geliyo waxa ummadda deeqaya waa inta hadii la waayo oo inuu tilaa gacanta uu baa kula jiraya yalla wada culi maayo waa iyada cirka roobkooga bay noqonaysaa marka waxaan hadalka ku soo gabagabeynaa ummadani waxay doonaysaa wixii ay xuquuq iyo xaq u lahayd tabashay kaas tabasheeda hala dhageystayaan yaan laga dhaga adkaanin oo dhaga laga furaysanin kuwa shalay ka hadlay mabda ka hadlay dibadda magaalada shir ku dhaxda way banaanada ku qabanay laftoodu maxad Case sheeganay masayrkii beesha meel bay kaga dhaceeliyo ummadda mana matalaan waxaan halkan mid kaliya ka oranayaa wax weeye
madaxweyne muuse bixi cabdi waanu aragnaa siyaasaddaada laakiin mid kaliyuu naga daa inay wasiirradaadii qaarna nacaayaan sida kan gaadiidka jooga ee yaree maaragtay jeelka ka soo baxay ee maxkamadda xukunteeda adigu difaacaysay ee wasaaraddan gaarka ee dakhligeedan iyo cashuurahan baabuurta la saaray baarlaman ansixiyeen aan u jirin meel xeerka kaga jirtaan aanay jirin annagoo og sababihii lagu bedelay wasiirkii hore maaliyadda yuusuf eed u keentay in adeerkii sacid cali shire aanu ognahay maalin maalmaha ka mid ah maxamed faarax qabille igu yidhi rag baa intay bastoolad igu qabteen yidhi maxaad hablaha iyaga ka rabtaa dabeedna waa si inankiisa lagu dhaawacay berbera islaan masaakiinana lagu dilay marka haddii aanu xukuumaddaada akhrino kan kale guddoomiyaha ka maaragtay barakacayaasha isagana wixii shalay ku adeerka 100% way dhacaysaa war 100% ma dhacaysa 35 bay dhici oo aan ku qiimeyn karo berbere iyo hargeysa burco ka dhici mayso goboladan gabile qaybtaan ka degno iyo awdal iyo salmidna ka dhici mayso haddii aan la helin awood qaybsi cadaalad ku salaysan dorraad waxa dhacday dorraad shalay ma aha dorraad maxaad casoo dhabay isku yimid waa la shiray go'aan baa la gaadhay go'aankaasi ku midaysan buu shalay niman baa sugsuglay la tagay daba faruur nama khuseeyaan iyaga u taala waxa weeyaan waxaanu doonaynaa 20 sannadood ina bixiyo ilaa siiraan yadogeyd uqaasha halka ku hor joogtay ee xaq waxaanu doonaynaa xaqayada ku haysan ee ninba ku riixay maanta ina bixo waday ku taagan tahay cidda aad ku riixi doonto anu ma garanayo raganimo muujiyo gobolkan awdal wuxuu leeyahay miiska soo saar waxa weeyaan haddii aanad soo saarayn wariyaa dawladnimada adiga iska leh waleeya bileeto aday ka dumi annaga inaan waxba naga daadanay waxa weeyaan waxaanu diyaar u nahay jiritaanka Soomaaliland nabadda Soomaaliland nin walba waa wadan laakiin xaq iyo xuquuq waxaan leenahay ninna u daba fadhiisan mayno yeelina mayno dhalinyartayada wayna daba taagan tahay salaadiintii waa halka joogo isku mid baanay siyaasiga iyagu waa nala mid waa biyo kama dhibcaan ina bixiyo dib isugu noqo gobolkan awdal wuxuu leeyahay miiska soo saar madaxweynaha jumhuriyadda Soomaaliland mid baan oranayaayo waxaan oranayaa warkolka gacmihii wayna daaleen in badan baanu doobiga xoor kale gacmaha ku haynaynu xajinay ya madaxweyne in badan baanu doobiga xoor kale Soomaaliland koro haynay inina koobka darsanaas kulka gacmihi annagana daalo doobiga waan dhiganaa cidii qaban lahayd doobiga xoor kale naga wareejin lahayd in darsanaso adigu samayso yeeliwa madaxweyne xuquuqda gobolku leeyahay aadan yabaal hal diidan ma laha waa in la helo yar iyo weyn waanu iska raacsannahay maanta ninkii ka soo horjeestay gobolka awdalna annaga kurka ka goyn mana aqbalano mana yeelano ummadda ree awdalna way israacsan tahay sidaasay isku raacsan tahay inay xuquuq waxay Soomaaliland ku leedahay hay hesho iyadoon cidna dulmayn cidna ku xadgudbayn xuquuq waxaan leenahay kama tagano waan isku raacsannahay yar iyo weyn nin gees ka hadlaya nin gees ka hadlaba waa ummadda ree awdal bulshada ree awdal dhammaanteed cid walba leh kan waxaan ka hadlaynaa laba shay baan ka hadlaynaa midda koobaad waxa weeyaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waan salaamaynaa waxaan ka rabnaa iyo madaxweynaha ku xigeenkaba waxaan ka rabnaa zaama qaybsiga gobolka awdal aw doonayaan rabnaa marka koobaad marka labaad waxaan leenahay ku nimankii shalay hadlay nimanka shalay hadlay siyaasaddu waxay leedahay salaadiin siyaasi ya dhalinyaro ayay leedahay ma aha niman matalayay saddexdaas shay midna kuma jiraan uqaashu mid bay leedahay dhaqan bay leedahay siyaasiyiintuna wada gaaray leeyihiin waxaan leeyahay dadkii Soomaaliland waxa iska beeray siyaasigii iyo dhaqankii hal kala sooco siyaasigu ha ka hadlo iyo salaadiintu annagu waxaan taageersannahay sida ay salaadiintayada iyo siyaasiyiintayada iyo dhalinyartayadu ay ku dhawaaqeen baan taageersannahay kuwa nimanka shalayna waxaan leenahay nama matalaan asalaam nimanka shalay halka u baxay ee og beelaha masayrkooga iyo kacdoonka dhalinyarada iyo ummaddu waxa ay rabto
ee la dhuuntay saxaafaddee la tegey xabaalaha dadka lagu aasa dabadoodiiyo etoobiya la galay horta inaanay waxba u kordhinayn cidda diraysa ha ogaato oo aanay wax alla wax codoo ay u hayaan aanay jirin aanay matelinna beelaha masayrka beelahana aanay matelin nama matelaan annagu waxaan u fadhinaa madaxweyne saami qaybsi wixii cad aan u lahayn nama lihidoo nalama hor joogtid waan waxaa ma lihidin waraa looga xisaabtamay kolba in yaroo dhabarka la soo taabto dee masayrka dadka iyo ummadda waxay biinayaan ma jirto ama kolba mana joogaan maanta ninba meel buu ku dhuumanayaa oo ummadda way ka qarsoon yihiin haddii la arkana waxa lagu samaynayo waa wax laga ballamay oo la og yahay taa horta waxba yaan dhagaha loo raaricinin kolba nin hebelow hadal laydhaa qaxwo yar loo soo diro taasi waa taa ummaddu waxay u fadhidaa dhallinyaro iyo waayeelba waa saamigii gobol ku lahaa ee samaroon lahaa assalaamu calaykum